رجال شدادو وعول هرتيبة جبناي سود هذا الصومالي مريولي أن مدحونياشي هراء الصوماليات وينولي جزومها إلى باب محدا إسكاله معارض كي وعافمات قبان وينولي جزومها إلى باب محدا إسكاله نحن درثت أيام صح سنة صومنا ولا معارض كي ما حيدين مغضي ما حدا يدين مغضى صومالي مريولي شعيب سودو أنا ضدك يسودوين وحان فرحة درتي للصوحي لما قلنا معارض كي أو نول أو وحبا كل عين مركان أوغادي إلهو ما هذا أعضاء إسكاله إلهو ما هذا إسكاله إلهو ما هذا أعضاء إسكاله معارض كا أي سمع وحيصوبنا يعني مظاهرات كا وان ديدنا ديدي صدق كوني يكو ويبان وديدنا ونفتو كو كتاي وريجا استيلي معارض كا استيلي أو وذا شقينين أو وذا سعن وروح الدلي كوي عرورتو ذا الدلين بادلي هويا كلا أرسل دارود بادلي دارود معها كبرال الحباب دلي أحمد مذوبي يدني بقى صادري أو دلي مدحوينياش نفط عليه وحنك عبسنا يا شباب كهر إيه الدولة ده كهر كما عبسنا الدولة ده كمان عبسنا شباب وحنك عبسنا يجا نحذو ده إيه لبضا قبل الله لبضا أور ما إلها مثلا لبضا اللباح قلق أستاي إني أصادران أو بلغوا نفط ورعدوا بدنا لبدا مدحوينه iyo mucaaradku inay mudaharaadka ka qayb galaan shuban bay u dhacay shuban baan la maqnaa bal maanta yar buruflayn maanta waa maalintii ballankeeni ilaahay u gaarsiiyay Soomaali waxaan la ballamay maalinta ay lahaayeen arfarmaajo igeeya aan waxaan lahaa warfarmaajo ka jooga hadalladii aan isdhaafsanay yaan mid helay xalay way fara badnaayeen markaan farmaajo diidanaa waxaan ballan qaaday inaan haddaan noolaado maalinta eriyay aad bilowdaan inaan anu farmaajo dooranayo maantaan ansixiyey farmaajo hortiina markhaati ka ahaada farmaajaan doortay 4 sano haddeedan idin tahay haddaad ogashihiin doorashana inta doorasho la gaarayo farmaajo yaan doortay war ma rabtaan doorasho ilmaadeerayaal fudaydiya oo labadan daarood oo fudaydiya oo mucaaradkoo fudaydiya ma rabaan doorasho mar haddayna doorasho rabin farmaajo isagaan dooranay isagay doorteen bal waxaad ila wadaagtaan hadal yar oon helay markii farmaajo la dooranayay daar dheere lagu soo dhaweynayo farmaajo ee lagu dooranayo ay marayso farmaajo igeeya mar waan ku faraxsanahay inay Soomaali halka istaagto guushaan qarka u saaranahay marra ma ana qaldan mise dadkana qaldan baan isweydiin walwal iyo walaac ayaan qabaa waxaan istaagayaa farmaajo ka jooga war farmaajo ka jooga Soomaali sawtaan qaanima okay farmaajo insha Allah wuu guuleysan laakiin guushaba haddaan la rabin oo la doonaynin majority-ga guul ma rabno Soomaali say u dhan tahay majority-ga guul ma rabno okay waxaana ka taliya kuwa guusha aan rabin kuwa qandaraas qaatayaasha kaliya taliya reer kasta u taliya okay haddaan idin soo gaabiyo hawiye in uu intaas madaxweyne ku fashilmo oo nin daarooda oo haddana mareexaan iyo ku guuleysto hawiye uma cuntamayso koodii nacaska ahaa okay isaaqna iska badaa hadalkiisa taasaa muuqata laakiin waxaan ogahay mid ka daran oo la arag mid kabla la xiisam la yidhaaho ayaa jirta warsoo Puntland ma joogto
haddana Jubbaland baa bilaabantay Soomaa waa meel Soomaaliya Jubbaland oo Soomaali ku dhantahay laakiin waxa uu talinaya daarood oo kabla oo ogaadeen Soomaa waran ma reeyal ninkani guul buu keeni karaa guul buu insha Allah keeni karaa guushaana mid dadajinaysa dadaal tartiib socda weeyaan adeero hawiye ma yeelayo oo isaaq ma yeelayo oo daarood ma yeelayo ninkan ugu guulaysan ka daaya haddaad ka dayn weydaan insha Allah waxaan dareensanahay inuu ku guulaysan oo ciidan dhisi oo sharafta ma soo celin okay haddaba markay taasi bildaanto mudaharaadka iyo dhibka lagu dawladihii Soomaaliya cadawga ahaana ka wasi daran waxa kuwan aan ku sheegay waxa ka daran kuwa Soomaaliya cadawgeeda ah kuwaas baa dawladahaas u adeegsan haddaba ma ka celin karaa hadhow anigu markaas aan farmaajo dooranaya hadda ma dooranayo warka joogaad leeyahay haddii aan fiiriyo goboladan mashan baynu marnaa masalix waxa kale oo ii muuqda markaan daarood fiiriyo Jubbaland iyo Puntland bay ka taliyaan Soomaa midna lama shaqeyn karto gado xumaan ma aha ay gado xun tahay waxa xumaanaya ninka ka taliya Puntland hadduu ilaahay mid fiican keeno waa gaar midka Jubbaland ka taliya waxaan aaminsanahay in gado la shaqeyn karin gado lama shaqeyn karayso sida darteed khaaduka noolaha aan ahay anigu gado waxaan jeclahay in gobol laga dhigo gaar ah mar haddayna la shaqeey wargada inay la shaqeyso Jubbaland iyo maxaan ku dhahaa Puntland waxa uga sahlan inay la shaqeeyaan gobolada kale okay marka gado waa baan ansixiyay sinay jiraan u sii maslaxada dalkan u ansixiyay maslaxada Soomaaliyeed baan u ansixiyay hadii aan la deynay goboladan gado gobol in laga dhigo weeyaan dhibka ayaa yaraanaya okay waxaan noo muuqda wax badan oo farmaajo aanan ku dooranay haddaad sideen weydaan anigu maalintaas aan dooran aan difaaci okay maalinta ma wada difaacna Soomaaliya intii aqliga lahayday odayaal dhaqameed oo sheekhow ma difaacna maalinta ninka loo erinayo guul buu Soomaali gaarsiinaya okay maalintaas aan hadii aan noolahay maalintaas ayaan difaacaya aan dooranaya farmaajo farmaajo inoo daaya ilaahay waa gaarsiiyay cimriga raaga geel dhalana waa ku saabu ku maamahay raxmarkii maalintaas raggi ila doodayo ma xasuutaan anigu maalinta waan diiday farmaajo waxaan u diiday jacayl Soomaaliyeed maantan ogolahay 4 sano ma rabtaan mise waxaan rabtaan 21 years so ma hayna siyaad bare 25 years baan uga dhigay ilaa doorasho xaqas aad keenaysaan la tartama kaga qaada cod waxay baan ii xagelin oo faa'iido silent speech hadii sharaxo inta raadinayay dawada doqonnimada waxaan helay dawada samboorka dawada samboorka aan helay oo agtiina taala okay bahal samboor leeyahay laga qalay naftu ii keenay waxaan idin weydiinayaa Soomaaliyeed waliga nin buuri sanka ka cuna ma la saaxiibtay ama ma aragtay ama ii raadiya nin kasta oo Soomaali oo buuri sanka ka cuna soo raadiya keena saas technology baa jirto oo bif aan ku siinayo laakiin traditional baan idin isticmaalaya buuriga oo talaya haniga idinka faa'iideeyo hadaa danqanasaan walaalayaal baashani waa dawa aan sameeyay oo samboorka oo ilaahay idinku soo dhiibay okay wali ma aragteen nin sanka buuri ka cuna iyo dambaskiisi oo cancel ku dhacay sanka iyo maskaxda ama samboor ku dhacay Soomaaliya hal raadiyo hala isoo tiro koobo Soomaali shanta ahayna la sheego nin kasto buuri sanka ka cuna labada duleel hala ii keeno halana baaro nin kasto oo cancel miyuu ku dhacay samboor miyuu ku dhacay hadduu ku dhacay waxbaan baaraya ay ku dhaceen cuduradaas haddaynan ku dhicin
buuriga iyo dambasku ama solutionka sawma inta waa gifti bidaarta waan ku dhawaahay timihii iga go'naa dulmidiid markaan u dagaalamayay ma aragtaa inay soo noqdeen bidaartana xal baan hayaa inta aan raadinayay dawada doqonnimada waxaan helay dawooyin badan oo Soomaali faa'iido ah oo bilaadanka faa'iido ah arfarmaajo inoo daaya inta buuriga ninka san ka cunaa soo helisaan arfarmaajo inoo daaya inta tartanka la gelaysaan xalaala arinoo daaya anigu ma hayo nin aan doorto markaan qalbiga ka hadlo ee aniga inta yar igu jirta aan ka hadlo iyo inta ii muuqata aan ka hadlo nin farmaajo aan ku doorsado oo dhaama ma hayo gobolka Gada la yiraahana waan ansixiyay anigu inta laga baxay ee xal loo helayo 40 ama 50 iyo haafka federalismka ma anfacaya Soomaaliya okay qolo Puntland la yiraahaa ku dhagan baan maleen federalismka war maxaad u rabtaan waan garan gobolka Gada la yiraaho waan ansixiyay maana jeclayn Soomaali inaan kala qaado laakiin Gado lama shaqayn karto marxaatibaad iga tii waligii baan aaminsanaa haddan waan aaminsanahay waa laga yaabaa qaldanahay waxaan leeyahay labadii atoore waxaynu biisi ku nahay xamar kaliya dawladda Soomaaliyeed ama dawladda farmaajo waxay ka socon laadahay daarood kablalax okay ilmaada rayaal Soomaaliyeed hawiyow maxaqba in si gaar loogu laayo Kismaayo Mareexaan maxaqba khaaduka noolaha wuxuu ma ogolo hada la soco cid kastuu laaya laakiin iyaga daqasho gaara siyaada absamaha ka badan sidoo u laayo laakiin ta absamaha waxa iga daran tan Mareexaanka si gaar loo toogan ee madaxa laga toogan absamaha malaha dhabar ka toogtaay ama calooshe waan diidanahay Puntland waxaan leeyahay Soomaali sharteeda idinka bilaabay maantana koobkii doqonnimada ee munaafaqnimada ayaad qaadeen Puntland waxaan rajaynayaa Puntland inuu ku jiro rag badan odayaal badan aqliin badan Soomaali ninka loo geynayo waa ninka la yaadani talaabo xun buu bilaabay tii tabcadii Puntland bay Soomaali u taaglaadahay haddana Jubbaland inuu lugooyo oo uu adeega cadawga Axmed Madoobe rajo lagama qabo uu cadaystay Kenya ayuu u shaqeeyaa kaba Arab u shaqeeyaa laakiin rajo yar baan leenahay Puntland odayaasha Puntland aqaliinta Puntland boqorka daarood ama Soomaaliyeed hashu marbay yaxlahayd man dani hadaan qaldanayn ama annaga naqabta ama dadka tan aaminsan qabta reer Puntland ama dani qabta niman la yiraahdo kablalax niman la yiraahdo kuumade rajo kama qabo dhowr kun oo message baan u duubay oo u diray dhowr sano ka hor kablalax kaba weyne ma qaban karaan Axmed Madoobe okay ciyaal shidaado cun hortiiba jabaye macnaheedu waxa la soo diray odayaal hartile oo le absamow kablalaxow murid ku jirin qof xalaala okay waxaan idinka absamo waxaan idinka aan idin sheegi hartiyow waxay u soo dhacday doqon hartiyow muxuu ninkii gabadhi maxay tiri ciyaal shidaado cun hortiiba aran hartiyow col hortiiba jabayay buu absame kuleeyahay ama kablalax ama kuumada kuleeyahay adu waad hadli kartaa ninka maxaan ku dhahaa harti ee Kismaayo joogow adu waad hadli kartaa laakiin ninka kuumade ee Kismaayo jooga ma hadli karo mudaharaad baa sheegay ma hadli karo marka adeer meel taa ka warhayn mise uma naxaysid Axmed Madoobe dadku ugu cintiraanka badan yahay waxa waa ma jarteen kelmadan harti lafteeda waa gadeeni
اوكي قولada ugu ixtiraam badan yahay sida la ii sheegay waa ma jeerteen waana lugoynaysaan reer lugooyo waa lugoynaysaan adeer farmaajo inuu ka too late farmaajo maalintii u horeysay baan anu iri ha ansixi gobolka farmaajo inuu ka danqado goor dambe waxay ahayd too late inuu mar hore ka danqado gobolka geda la yiraaho waxaan rabnaa haddaan la deynaynin inuu noqdo gobol uu ka hoos baxo kab iyo laxda doqonka kabla lax inuu ninka sida ka hoos baxaan rabnaa aanu ololaynaa hawiyo waxaan leeyahay hawiyo labada madaxweynaha Mareykanka waa la ilaaliyaa Soomaa marka runta idin sheego waxba soo qabateen wax yar wixii aad soo qabateen ayaa dib ugu ciyaarteen Soomaali waa intaasoo milyan laba jeer war saddex jeer abgaalow inaad madax noqotaan Soomaaliya ma qabil ilmaade rayaal Soomaalida kale jaanisiya haddaad sii weydeen abgaalow ilmaade rayaal hawiyaha kale jaanisiya halkeed ka sokoysaan hawiye maxay ahayd meeshiiso ka maxay ahayd idinki habargidir jaanisiya bal at least habargidir saddex idoon ha gaadho labadan madaxweyne anigu waxaan leeyahay inay tartan soo galaan sharaftii yarada sameeyeen bay dib u cunayaan ama Soomaali bay u horseedayaan intii la toogto ayaa la oran farmaajo toogtay ka waran hawiyo oo la yiri labadii madaxweynaha la dilay 100 sano oo dambe Soomaali soo noqomayso adaguna wuu idin daawanaya waxana la doonayaa in aakhirka la kharajiyo saddex madaxweyne ama mid ama laba ama kulli marka la kharajiyo hawiye dhaga male oo indha male xamar lama joogayo yaa dilay hada hawiya dilay dhaxdiisa yaa dilay hada kabal xabaa dilay yaa dilay okay Kenya dishay yaa dilay Arab baa dishay Arab maxaa oran Imaaraad baa dilay okay yaa dilay musabixi baa soo diray dad marka daarood iyo mareexaan dib dambe وحمر يا الله ونقولن وهكذا مغناطه عدوه Soomaali inay isku timaado doonaya taasu sugaya sida darteed baanan u ogolayn mudaharaad ka dhaca oo ka qayb galaan nimankaas haday ka qayb galayaan oo ina hub wadan ma haday hub shacabku una wadan ila way soo gnahay Soomaali meel lama degto war ra'iisku ma seego maamaadi ahayd abiskuul meel lama degto war ra'iisku ma seego waxba kama jiro bila aadanka ayaa saan noqday Soomaali meel lama wada degto war ra'iisu ma seego anoo jooga Australia xamar taaka wala socda adowga nimanka mucaaradka adili doona ay leeyihiin waa saaxiibadood waa Axmed Madoobe ku u shaqeynayo xitaa Axmed maaha waa Kenya xitaa ma wada waa inta xun waa Imaaraad waa musabixi dadku u shaqeynayo okay وانت ربط الصومالي إنيشي ماشي كلية لو كلا تجيو ورنمان كان مدحوينياش أبجال حلا إلاليو ورنمان كان حلا إلالي إذا ما جار حلا سمايو فرماجو حداد إلالي سو أمان كوه الميسي حداد إلالي أمان كوه الميسي وحن كربا أرد وسير كشان قوايو وسير كشان هب إنه هوية هديون هوية هينا وكدينيا رئيسul wasaaraha waxaan si gaar ah uga codsanaynaa hadaanu Soomaali nahay inta garashada leh inta damiirka leh inta dadnimada leh رئيسul wasaaraha waxaan leenahay si gaar ah u ilaali mucaaradka ciidamo waa tolka waxa isku tihiin hawiye waxa isku tihiin maxay habartii hoose idinki habargii maxay abgaal nimanka mucaaradka badbaadi oo tolka ka badbaadi oo Soomaali badbaadi nimanka waxaan ka cabsan in loo shaqeynayo in la toogto la dilo ka bacdina halka lagu kala tago okay hawiye dhaka weynaya qabanaya ciidama qabanayso waxaan ilaahay marka daarodo inta jirtay Soomaali waxay u baaba'aysaa labada nin Axmed Madoobe iyo Dani inta daarood ku jirteen naf lahow labada nin Soomaali ka qabta okay waxaan leeyahay doorashada inta la keenayo dad la tartami kara
annagu waxaanu dooranay farmaajo gobolka gadana waan ansixiyey salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu